Antonov AN225 sidoo kale waxaa loo yaqaanaa Miria waa diyaarad xamuul oo istiraatiijig ah oo uu hore u sameeyay Midowgii Sofiyeedka. Dhererkeedu waa 84 mitir, balaca garbaheedu waa 88.4 mitir, dhererka jooggeedu waa 88.1 mitir. Tirada matoorada ku rakiban waa 6 matoor. Dhammaan taayirada ka caawiya degista diyaaraddan waa 32 taayir. Culayska diyaaraddan ayada oo maran wuxuu gaaraa 285 tan. Awoodda xamuulka ay qaadi karto waa 250 tan. Xawaaraha ugu sareeya oo ay jari karto waa 850 kiiloomitir saacadii. Waxay samaysay safarkeedii duulimaadii ugu horeeyay sanadii 1988 waana wixii ugu cuslaa ee duula oo uu bini'aadamku sameeyay ilaa iyo hadda. Waxaana loo sameeyay in lagu qaado diyaaraddii dayax-gacmeedka ee Buran. taasina waxay qayb ka ahayd barnaamijyadii iyo mashaariicdii hawada sare ee uu watay Ruushka. Markii la joojiyay barnaamijkii hawada sare ee Buran, Antonov AN225 ayaa howlgabtay muddo 8 sano ah ilaa xilli dambe dib loo soo cusboonaysiiyay, ayadoona ay si toos ah ula wareegtay shirkadda duulimaadyada ee Antonov Airlines. Bishii November sanadii 2004 ayaa ururka ciyaaraha duulista ee adduunka ee loo soo gaabiyo FAI markii uu eegay diyaaraddan u soo sharaxay in lagu daro buugga diiwaangelinta dhacdooyinka adduunka ee Guinness World Record. Marka taas laga soo tago, waxaa la siiyay diyaaraddan Antonov 225 diiwaangelinta qaadidda xamuulkii ugu cuslaa ee hawada la mariyo. Markii ay qaaday sanadii 2009 hal safar oo keliya culays xamuul dhan 189,980 kilogram. Sanadii 2002 ayayna si toos ah u bilowday diyaaraddan ka shaqaynta dhanka duulimaadyada ganacsiga. sidoo kale markii uu ka dilaacay adduunka cudurka safmarka ah ee koronaha horaantii 2020 waxay diyaaraddan gacan weyn ka geysatay soo qaadidda xaddi aad u badan oo daawooyin ah kuwaas oo ay ka soo qaadi jirtay Shiinaha kadibna geyn jirtay daafaha dunida. balse nasiib xumo intii uu socday duulaanka Ruushka ku qaaday dalka Ukraine ayay ku burburtay diyaaraddan sanadii 2022 garoonkii ay ku qarsaneed ee Hostomel Airport ama sidoo kale loo yaqaan Antonov Airport ee ku yaala nawaaxiga magaalada Kiev. waxayna diyaaraddan kaga tagtay shacbiyadii aragti horumar u ah tiknoolajiyadda adduunka ee uu gaaray aadanaha dhanka duulimaadyada ee casrigan. dadka aadka u xiiseeya duulimaadyada ayaana ahaa kuwa had iyo jeer u tagi jiray jadwalada diyaaraddan ay ku soo degayso ama ay ka duuleysa garoomada diyaaradaha si ay u daawadaan weynarkii iyo xajmigeeda. sidaas oo kale dadka qaar ayaa ahaa kuwa ka qaadan jiray diyaaraddan Miria sawirro iyo muuqaalo si ay u keedsadaan xusuusteeda.